وإسلام أنا مقعيقة ويا ما حقاد يقدرون يصنع جامعة يتمات مقالك الحوك سابسيا في اللوج الشيكة أذن كي شيكينا السويدن أو عرورتي لقال عرّية سكول دقار أو عرور الآن سوستها يعني أرضي وحلا برا ما بجرت بأرضي دي مصورة بس سمر كان مفسح سمر كلا قال دي بأم السولابا يود دقمون قار أو لو قبتي خلرات ده كجرين تملو إي والدين عرورته السقالة ده لو قال هدي هذا بقول لك إن الكي سبسكرايب صار حكوا لي سبسكرايب ده ده شو عاد عاد waxaa ma dukaanka wax ka soo iibsanaya baadeen magaalada aad tagay kadib aan kaga sheekeynaa wax sababta arimahan u dhacayaan iyo wax keenaya ugu dambeyn waa ka soo baxay dukaanka xaafadaha tagay baadeen magaalada imaanaya waad kaga sheekeynaa waay waxyaabahan ay u dhacayaan bulshada Soomaaliyeed ee wadanka ku noolse ba ku baraarugsantaa wax ka dhacaya wadankan iyo waxyaabaha la gudboon horta intaan guriga waxaa tagaa meeshan travel agency gaan waxa weydiinaya inay visa soo saaraanay in kale to hadii qofka dhalasho u samaysan sababta travel agency uu soo maray waxay tahay waxa rab ina ogaado yani hadii tusaale aan amaatan waxa rabaa ina aado Turkiga ama Dubai aan qofka dhalasho u san haysanin ma qasab yani aan safaaradda tago oo balanka qabsado wixiga aan soo dhameysto ama idinkeena baasaboorka idinka ii soo dhameynaysaan lacag intees ay ugu bixaysaa soo sheekada dhan waxa uu egtahay waxa ka fiican qofka maxallaad kaliis inuu tago safaaradda oo ka soo habaysto balanta uu rabo ama visa uu rabo ama wadanka uu rabo inuu aado waayo dadkan يعني واحد حسابي سفارة مركا عادي ست سفران كلا مقالة كلا كنت على سفارة ستوكهولم يعني هبيننا أصلا حديد واي هوتيل أدقي يعني خرج كوب بحاي رجع خرج كي كقادران واسكو مش جوك مش هذا جوك واي سو مركا صوبتا صوبتا رجع وكل حري عربينا وقال صوبتا يعني فرق يقول حي هذا كلية تجاي هذا أيك يعاوننا العقد هذا حضوني قفك يجهري ما أنت أسوق هذا قف كانوا كدونا يعمل يجر 2 دقيقة هذه 5 كيلومتر برميلاس واي قف كان يعطونا جي بي اس كما أركت مرة قار استبد واي صاحبنا وحكو درايا ميل أضو هايوي قبس كرو وحكونا أنت كده حبة حافظان كده حبة مفندي هايوي هذا قبس كرو بقول كسوع كرو وحكونا أنت كده حبة أوكي هذا وحيركو يا شيخ سنة بعدين وأنا كي شكينا يا صوبت والدين تودنا كانوا يقول عريان إذا تاس إصابة استلبا ريموت labada arrimood waxay yihiin sababaha wax walba ay kaga sheegayaan laakiin marka hore waxay shaqaysto magaalka iska dhiciyo meesha ma aragto waxa la dhahaa masaajidka balada agtiisa qof walba oo magaalada Itabuura degan oo garanaya waxa uu imaanaysaa dad waaweyn oo rag u badankood oo Soomaaliyeed ee meeshaas iskugu yimaada oo yani wax faa'iido ah ka hadlin fahmino balaayada wadanka ugu soo tagna mooy wax kale aysan ka hadleenin shaqama ka dhacdo wax ay ka fikirayaan male war booska ay maanta joogaan boqolaal dhalinyaro u baahan booskan maanta inay yimaadaan meesha ay maanta joogaan laakiin ay kan ma ka faa'iideysanayaan meeshaasna casnimo iyo doqonnimo la fadhiyaan xariif meeshana magaalada ka soo wada baadiyo bi keenabo bismillaahir rahmaanir rahiim misdeen magaalada ka bixinaa laakiin saas waawna magaalada muusan iga bixinaa magaalada banaankeedu istaajiye hadda magaalada ku noqonaya meesha waxa yaala diyaarad ciidan oo run ah laakiin meesha waxa loo dhigay sida maxalada ay sheeg sanab ahaan waayo meeshan waxa ku yaala garoon la dhahayo Safi Flygplan ama Safi Airport ee deegaanka ciidamada militariga wadanka Sweden meeshan waxa ku sameeyaan training dadkana diyaaradaha ay ku baraan yani dadka ciidamada militariga soo markii soo wuxuu aajira garoon shacab laakiin hadda garoon military ayuu noqday
odabaal saaxiibka imaankii waa kana mafahmino wadada la iska istaaga ya baawurkiisa wadada ku furfurnaa waraay seerabtaadi baawurka wadada maxaa ku furfurtay Soomaali ma umleesaadi iska habeysana brada wala iska dhaqanaa gaariga meesha ugu qabta ugu fiiray ma fahantaday haleedaati akaadalna marka maxay familada qaarkooda carruurtooda uga cararayaan wadankan iskuulada carruurta maxaa looga waayay sababtaas ay ka hadlaynaa laba arrimood ayaan u sababeynaya aniga oo dadka dhan ay wada ogyihiin dadka Sweden degan iyo kuwa maqan tan koowaad ee yacni kooxahan ka ganacsada daroogada carruurta waxay ku sameeyaan way soo jiitaan lacag ku maxala lacag u bandhigaan mobile wax waliba cunugii markaas wuxuu noqonayaa inuu koox ka mid noqdo kooxdii markaa ka mid noqotidne waxaa hadhowti mustaqbalka dambe gacantooda asabsan doontaa saaxiibada asla shaqaysatiin daroogada asla gadiin ama saaxiibada idinka soo horjeedo cadowgiina sida ogsoontiin xaafadda aad degantahay kaliya ayaa wax ku iibin kartaa xaafad kale hadaa tagto waxay noqonaysaa nin kale dhulkiisa waa sida isbaaradoo kale isbaarada xaafadda degantaa ka qaadan kartaa mee xaafad kale baabuurtooda isbaara kama qaadan kartaa haddii aad ka qaadana meesha waxaa ka imaanaya isku dhacaasna wuxuu sawayaa in qaar ka mid a kooxda ay ku dhintaan soo Soomaali ajaanib xitaa dadka wadankooda Swedishka yani sheekadan ma kala lahan qabiil iyo maxalla jinsi ma kala lahan sheekadan waa dhalinyarada oo wadanka dhan ee ka jirta dadka wadanka carruurta kala cararaan Soomaalida oo kaliya maahan Caraba ku jiro Swedish wadanka u dhashaa ku jiro Soomaaliya ku jirto yani jinsiyad walba ayaa ka helaysa carruurtooda wadankan kala cararay ayagoo kala ordaya dilka wadankan ka soo dilka Sweden wuxuu ku noqday wax caadi waxa arkaysaa 13 jir AK47 wato oo ku dhahay hebel baa maalo hor iyo hanjaba waa dilaya waa 13 jir ka wato kul meeshuu ka aadilay ku wata dad buleynaya waxa kale oo caadi ka noqday Sweden qof walba wadii karta idaacadaha waa kala socotiin kulay qarax waxa Soomaali ka maqli jirta ama meelaha kale baawura la qarxi ciidana la qarxi ma meesha maahan adigii aniga saaxiibana Soomaali waa ismaan dhafnay waa isfahmi weynay adig waa kuway war saaxiib maxalla gabadha qabtid hooyadad gurigeeda qarxina ama saaxiibka kula socdo hooyadiis gurigeeda qarxina saaxiib ma fahantay soo sheegada ibal markii hore wuxuu ku ekeed in kooxaha iseysta markin oo maafiyada ama gangiska dhexdood in ay is ugaarsadaan laakiin hadda sheekadu waxay maraysaa in familada qaraabada ehelada lis ugaarsado ana waxay ka sameynaysaa xamara joogtaa Soomaan waxa ugaarsanaya qof degan raas caseer ama raas kambooni oo waxba afaaraha ku jirno waxba ka ogeen wafat Soomaan dhibaatada heerkaas ay maraysaa soo familada waxay noqdeen marka inay ka cararaan carruurtan inay kala cararaan kala badbaadaan dagaalkan wadankan Sweden ka socdo wafante maxalla gang violence wadankan ka socda inay Sweden carruurtooda kala baxaan tan labaad oo ah Sweden waxa ku soo badanaya in carruurta la qaato carruurta la qaato ma xumo oo yani waalidka haduu carruurtiisa mas'uuliyadooda ka soo bixi waa laga qaado laakiin si qalad ayaa carruurta looga qaadanaya iyadoo lagu soo marayo dad aan cilmi u lahayn waxyaabaha ama sababaha keenaya in carruurta laga qaato meeshan fiiri waa kamuun la dhaho Elvis ama degmo la dhaho Elvis ee ku taala Elvis Binal laha waxay ku taala waqooyiga wadanka Sweden family badan oo cadaanka wadankan u dhashay Carabi ay waxay ka qaateen carruurtooda si qalad qofka go'aanka gaaraya ma uun lahayn wadankan waxa la moogtaa qofka markuu go'aan gaaraya ama wax sameynaa wax la dhahay bihorigeed waxay tahay waxaanay taasamiinaysid ruqsad ma u haysataa soo familiadaas maxaa la dhahay sheeg degmadaas Elvis Binal dhahay ku noolay qofka go'aanka ka gaaray carruurtooda in laga qaado kalifay muusan ahayn qof maxaa la ruqsad u heystay ama awood u lahaa ama cilmi u lahaa in carruurtooda laga qaado waxa kale oo jirto degmo kale oo lahaa Gislevad iyadana ku taalo gobolkan deganaya Västergötland iyadana sidaas oo kale degmadaas qaladaad badan ay ka galeen hay'adda arrimaha bulshada family badan carruurtooda ayaa sidaas si qalad looga qaatay waxa kale oo jirto degmo kale oo lahaa Vorberg gobolka Halland ay ku taala iyadana sidaas ayoo kale ay maxalla hay'adda maxalla arrimaha bulshada ama familada qaabilsan carruur badan familidooda ugu qaateen carruurta la qaata muxuu yaa loo geenayaa nin droogiste maxalla naag droogiste loo geenaa carruurtan ilmihi baahi lagu dilayaa waa la jirtalayaa carruurtu waa la furxmeynaa xitaa hadii familka maarag laga qaado fiican carruurtu wax baray hadii loo geelaa maxay ka hadhawlad waxa loo geenayaa dad kluste waxa kale oo Sweden ku soo badanayo qof alaal waa wadi kartaa gaal iyo muslim waxa kale oo Sweden ku soo badanayo wax la dhahayo makt misbruk ama isticmaalka awoodda dawladda
anoo dawladda u shaqeeya haddii aan awoodeyda aan isticmaalo si qaldan u isticmaalo way ku soo badatay Sweden yani waxa ka wada hadda af Soomaali si fiican kugu fahansiyo xitaa tusaalaan taliyaa tahay nin asmaan dhafteen adoo shakhsi oo shacab ah aan ismaan dhafteen darees ciidana u soo gashanaysaa ninkaas taa xiriis markaas waxay noqonaysaa awoodaada ciidanka ninkan ugu xadgudubta mugtaa soo Sweden waxa ku soo badanaya in awoodda dawladda ku xadgudbo anoo awoodda dawladda ku isticmaalaa inaan kugu xadgudbo badanaana caruuraha reeraha laga qaadayo qofka maarka dawladda u shaqeeya ay si shakhsi isku haystaan kadibna awood ay u isticmaalaa soo dawladda u shaatiga dawladda u soo gashanayo oo ilmihi kaga qaadanaya Sweden labadaas sababood ayaa keenaysa in ilmaha la kala ordo soo samarka hadda oo hadda fasaxii hadda holiday ugu dambeeyay samarkii la galay ee dadka banaanka u bixeen safarada galeen dad badan oo gaal iyo muslim ah carruurtooda dib u soo celinay iskuulada muuqaalkan fiiro waa iskuulku yaala magaalada Tabor oo ka xalaacalayo waalidkiina maxaa la warbixin laga mahayo ilmihii meel ay jiraan warbixin ma laga hayo carruurta inay wadanka maqan yihiin waa la ogyahay familkii oo maxaa la aabiyo hooyada wadanka way kala maqan yihiin ilmihii meel ay aadeen lama yaqaano soo waalidkan wuxuu ku leeyahay carruurteena ma u rabno waxa la dhahaa in maxaa la criminalitydkan ama maxaa la waxyaabahan gangiska inay ka mid noqdaan dil maalayaan cunugeen inuu ku dhaco mana doonayno in carruurteena ay ku dhacaan gacmo shisheeyo gacmo qaldan soo marka labadaas shay ayaa keenaysa in waalidiin badan oo gaal iyo muslim balle ku dhahay aan Soomaali oo kaliya Arab ku dhahay gaal iyo muslim balle in wadankan ay kala caraan carruurtooda waxa kale u sii dheer arinta ma aragto oo maxaa la qaniisnimada iyo baqtiga arintaas iyadana way u sii dheer tahay oo waalidka gaalka iyo muslimka wadankan ku nool waxa si turaale ma ka ودينا أني أذيك هبين كلمة وحنو دعان هبينك يا قرابنا هبينك داخل بتيت هبينك أنا وحقوق دعان هذيك المرة والبا dadka markay jiifan adina wadooyinka taagnaan wallahi laakiin caadi wixii dhacay way dhaceen next time adiga waa tookada Allah marka hore aanay dad adiga way loo kala bedel muuqaalkan uu socdo laakiin ninka markaysa gaariga ka halaabay gaari barko ka halaabay lugta qaraaco waxa qasab ah muuqaalkan inaan joojino meeshan ay imaano gaariga lugta ka bedelna hadana lugta kala akeeno gaarigi maba galeeso gacmaha fiiri soo xarjina muuqaalkan ma ta shay muuqaalkan intaan ku gabeynayna waa waqti dambe ay noqotay hadii aad wili kanaalka subscribe saar waxa ku leeyahay subscribe inta muuqaalka muuqaalada isku aragto waxa la asaasiyo nabad galiyo